Hello, cashirkan waa cashirkeenii noo socday oo ahaa learn how to use window PowerShell IC command-ka ama sida u qori lahayd script-ka wax la yiraahdo oo aad ku qori lahayd waa window PowerShell IC window PowerShell-ka ama window PowerShell IC PowerShell-ka IC command-ka caawa waxaan ka hadlaynaa kood kale oo sidoo kale muhiim u ah oo ama koodadka muhiimka ka mid ah annagoo aan ku jirno qaybta barfirerka qaybtan caawa waxa weeyaan waa qaybta function barfirer wax la yiraahdo function barfirer waa koodad ka mid a marka aad qoraysid scriptka koodad loo isticmaalo shortcut oo aan ka soo hadalnay cashiradeena hore ku dheeraan maayo marka ugu horeysa halkaa ayaan tegayaa halkaa markaan tago waxaan la soo baxayaa PowerShell-kaan la soo baxayaa window PowerShell-kaan la soo baxayaa markaan la soo baxo PowerShell-ka halkaa ayaan iska kalin garanayaa CLS aan ku taab garanayaa halkaa cashirkeena waxaa weeye maanta waa function barfirer wax la yiraahdo korina halkaa ayaan sida arkaysaan waxaan ku taab garanayaa set location ayaan leeyahay set location markaan dhaho labada xaraf aan garaaco space ayaan siinayaa cashirkeena maanta waxaa weeye function wax la yiraahdo weeyaan function marka wuxuu ka mid yahay koodadka loo soo gaabiyo ama marka qoraysid scriptka window PowerShell IC function barfirer waa koodad badan weeyaan marka hal kood ayaan ka soo qaadanaynaa enter ayaan taabanayaa saa u arkaysid halkaa ayaan waxaan ku taab gareynayaa get child item ayaan leeyahay saddexda xaraf markaan garaaco way soo baxaysaa saa u arkaysaan enter ayaan taabanayaa haddaba u arkaysaa haddaan kor ugu socdo clear spatku arkaysaa cd u arkaysaa get function ama function barfirer waa koodad badan waaye waa arkaysaan ma soo qeexi karno laakiin hal iyo labaan taabanaynaa haddaan halkan ku taabgareeyo dir aan dhaho aan enter dhaho sidoo kale asna wuxuu siinayaa koodad badan ayuu siinayaa marka get child item marka aad qoraysid marka ugu horeyso waa inaad ka hormarisaa function wax la yiraahdo functionkaas waa inaad ka hormarisaa set location function inaad ka hormarisid weeyaan haddii kale ma isticmaali kartid shortcut ma isticmaali kartid halkaa help ay ku qoran tahay saa arkaysaan haddaan halkan ku qoro aan hoos u socdo aan dhaho help aan dhaho inter aan taabto waa arkaysaan helpka oo inta uu ka saabsan yahay waa shortcut loo isticmaalo marka aad qoraysid scriptka window PowerShell IC command haddaba cashirkan waa cashir gaaban weeyaan ku dheeraameyno cashirkeena caawa intaasuu ka saabsan yahay haddii aad galaaskan ku cusub tahay ama galaaskan ka mid tahay like-ka noo taabo komanka ka bixi komankaada waa noo muhiim subscribe-kana saar waa noo cashirkeena dambe